dhawaad asxaabta maanta casharku waa social media marketing san horey ugu ballanay waxaan kasoo hadlanay qeybihii kala duwanaa ee digital marketingka affiliate marketingki baan soo aragnay waxaan kasoo sheekeynay muhiimadda affiliate marketingka leedahay sida looga shaqeyn karo sida lacag looga sameyn karo waxaan kaloo idiin sheegnay in course gooni ah loogu go'i doono affiliate marketing aan goonidiisa u diyaarin doono markaan fundamentalka ka dhex bixi doono digital marketing oo dhan haddaan casharkan maanta usoo laabano runtii aad buu u kooban yahay social media marketing waa tan ugu ballaaran uguna faraha badan marka la joogo digital marketing mar kale asaasiyaadka haddaan idin xasuusiyo qofka insha allah dee waxyaabaha nuxurka ah la baxo buugii noodkiisa ha qaato janaalkiisu ilaa inuu share gareeyo subscribe-na saaro oo open resource casharada tan fundamental runtii aad u qiimo badan weeye marka ha ku caawiyo dad badan oo soomaaliyeed u baahan inay gaaro telegramka commentiga ku yaala in lagu soo biyo sidoo kale yaan la ilaawin channelka telegramka soo dooratid sidoo kaleeto wixii ganacsata ama u baahan la talin gooni social media la xiriira nasiib wanaag iyagan whatsappka ayaan u sameynay whatsappka nagala soo xiriiraan runtii waa mahad celinaya dad badan ayaa nala soo xiriiray ardo badan baa groupka ku jirta casharkan haddaan usoo laabano maadaama social media uu aad u guda ballaaran yahay waxaan go'aansaday inaan aad usoo koobo casharkan maanta casharka khamiista soo geliyana aan u noqdo casharka asaasiyaadka u ah laakiin wixii haddii la isku daba xiro fahamkoodiina wuu yaraanayaa yani nuxurkiina wuu dhiminayaa marka waxyaabahan rabaa inaan ka mid ina casharada soo koobo social media marketing si caadiya iyadu waa in social media loo isticmaalo inaad kula xiriirdo dadkaaga audiencigaaga si aad u dhistid brandiga ganacsigaaga saleskaagana u siyaadisid haddii website leedahayna traffic badan ama dad badan oo soo badqabsidka u heshid sidoo kale waxaa loo tixgeliyaa inay tahay in yani publishing great content in lagu soo bandhigo xog muhiim ah oo aad kula wadaagaysid aad kusoo bandhigaysid profileskaaga taasoo yani aad kor ugu qaadaysid dadkaaga followerskaaga ah isla markaagana awood u yeelan kartid inaad analyze ama qiimeyn aad ku samaysid siday u socdaan barahaaga bulshada haddii tusaale yar aan ku siiyo arrinta tani waxa weeye social mediaha sida caadiga ah adduunka waagi hore waxaa loo isticmaali jiray chat to chat ama wixii objective ahaan wixii loogu talagalay bimatalan hotmailka oo kaleeto amazon baa ku xigay facebook ama aan soo qaadano facebook objectiveka loogu talagalay waa goob bulsho oo free ah oo dadku ay ku wada xiriiraan waxaa ku dhex jira dad tiro aad u badan I think inay tahay 2.7 billion persons baa active ah bishii 19kii weliba xogtaas ahayd waxaa marka loogu talagalay facebooka in dadku ay sawirada iskugu diri karaan chatting ku samayn karaan post ay samayn karaan groupyo ay ku wada beeri karaan waa wax normal life-ka ah oo la xiriirta intaas markii la joogay kadib waxaa la arkay muhiimadda ay u leedahay in bulshadu yani halkan ganacsatadu ay ku samaysato xayeysiimo taasaa marka businesskii baa imaanaya business kastoo adduunka ka jira maanta wuxuu ku leeyahay bahalkii online profile shirkadaha ugu waaweyn videoga yarkaa koobanna waa kaga hadlay marka business kastoo adduunka jira wuxuu ku leeyahay runtii wuxuu ku leeyahay business kastoo maanta adduunka ka jirana wuxuu ku leeyahay online profile buu ku leeyahay kaas oo runtii doonayo hadaan halkan idinka tusoo arki kartaan shirkadaha shirkadaha ugu qaalisan waxay ka mid tahay adduunka ka jirta Nike dharka soo saarta horeyna mar casharadeeda mid ka mid a waa ku sheegay ma jirto yani 35 milyan baa qofa la socoto shirkad maanta jirta adduunka aan Facebook profile ku lahayn ma jirto yani shirkaddii waxay samaynaysaa markay samayso ay jirto waxaa masti ku ah inay samayso online profile uguma hartee dadkeedii inay kula xiriirto waxaa laga yaabaa inay liketa ay lacag ku bixiso intaasoo qof inay ku xirato intaas kaliya maahan haddaad fiirsana transparencygeeda page transparencygeeda hadda Nike intaasoo qof baa maamula beshijkeeda ma aaminaysaan maraykanka 138 qof joogta baa adminka ah South Korea 59 yani shirkadda say u weyn tahay fiiriya
people who manage this intaa oo kun oo qof dalkayaga bal Afrikaan fiirsho. Africa inaysan waxba kaga jirin maama Africa Morocco 2 qof ka maamushaa, Imaaraadka 2, South Africa 7, Turkiga 14, Mareykanka ugu weyn weli. Marka Nike oo saas u weyn baa Facebook samaysatay si ay uga samaysato xaysiimo ay uga samaysato. Haddaad halkan fiirsaan xaysiimaha ay Nike samayso maybe air librariga waa taqaanaan baa u malaynayaa. Soomaaliya hadda waxay siin gooni ama doorno internationalka haddaan doorto. Okay, ima soo saarin laakiin haddii aan ku baarno laakiin hadda halkan u galin waa Facebook air librariga shirkad kasta oo xaysiin samaysa baa ku arki kartaa. Okay, Nike wataas kabahan baa intaan socday xaysiin saata. muhiimaddu waa maxay aan hadda halkan usoo qaadanay waxa weeye inaan tusno yacni shirkadaha adduunka ka jira oo dhan waxay isku dayayaan inay samaystaan online presence ay bulshada kula xiriirayaan. Instagramku waa la mid. Instagramka weliba kasii badan shirkadaha maadaama isaga Instagramka loogu talagalay bar bulsho waxaa laga yaabaa shirkado aad u badan oo 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 shirkado aad u badan oo maxaan ku rahdaa inay sameeyaan Qatar Airways oo kaleeto marka koowaad waxaan waxay samaysatay waa arki doontaan 2 koorso oo gooni ah baan u samayn doonaa haddii rabbi idmo dad page kusii taxnaataan oo Instagramka sida looga sameeyo businesskaaga Instagramka sida loogu xaysiiyo loo sameeyo online profile loo sameeyo yacni organic iyo waa arki doontaa iyo paid iyadoo ahba haatan haddaan mid ku dhufto waxaan waa storiyadooda ay soo dhigtaan waxa dhan waa storiyadooda ay soo dhigtaan yani online presenceigooda aad buu u habaysan yahay I think Soomaalida waxa diyaaradda ugu caansan ay Soomaalidu raacdo waa Ethiopia Airline dalkan dariskeena ah and I don't know why Ethiopian Airline Hargeysa no. Okay. Ethiopian Airline I don't know why aysan u lahayn laakiin I think inay leedahay by the way nuxurka haddaan usoo laabto waxa weeye shirkad kasta oo adduunka jirta maantay ha yaraato ama ha weynaato waxaa waajib ku ah inay samaysato baraha bulshada waagii hore baraha bulshada waxay ahayd in loo isticmaalo chatting laakiin ganacsiga hadda intaas wuu iska bedelay sidaas awgeed qof kasta oo doonaya inuu ganacsi samaysto ama related ganacsi ah wuxuu usoo wareegay dhanka kan baraha bulshada barihii bulshada marka 2 waxood bay usii kala baxeen kuwa yacni online wax lagu iibsado caawinaya iyo kuwa adoo gurigaaga B2B oo meesha aad joogtid wax ku gadaya dadka ereyadaada inta ku xirtid xaysiin ku samaysatid yacni dadka halkaas ay kaaga imaanayaan shirkadaha kaleeto ama aadka aan mid idinka tuso hadda adduunka yacni type kasta farmashi oo kaleeto wuxuu la xiriira farmashi CVC farmashi soo ma jeedaan waa any type of shirkad oo adduunka maanta jirta Facebook balance uu leeyahay waa arki doonaa waxyaabihiisa u goonida ah shirkadda tan waxay soo saartaa marka dawada laftirkeeda balance baa jira loo xaysiiyo iyo qoraallo loo soo qoro shirkadaha Nike soo waa qornay another hal shirkad oo kaleeto haddii aan madaxay kusoo dhacdo waa gelin lahaa laakiin dhima lahaa waa ka soconanaa laakiin McDonald oo kaleeto waad garanaysaa ma umaleynaya McDonald sida Nike tooma ay caansanaa 81 milyan baa la socota way ka dad badan tahayba waliba iyadu way kala duwan tahay
macdonald weyn mid dalalka goonida ku taalla imaaraadka mid baa ku taalla baxrayn halkan mid baa ku taalla xaysiimaha ay macdonald sameynayso fiir waa macdonald oo shirkadda inta tare leego weyn xaysiin bay sameynaysaa facebook waxaana waa xaysiima ay sameynayso waa active soo ma jeedaan tan July 5-teedii waa la bilaabay tan June 5-teedii tan June soo bisha lagu guda jira maaha hadda shalay miyaan soo daraato way bilaabeen midba June 4-teedii la bilaabay muhiimadeedu waxaa weeye shirkad kasta oo ganacsi adduunka ka jirto waxay isticmaalaysaa xayisiin waayo marka shirkadaha yararka wayba kasii jecel shirkad yar hadda dad garanaysaan soomaalida haddii aan waxa aan ka fiirsho xayisiin sameynaya siyaasiyiinta ugu badan baa malaynayaa inkastoo sponsor Federal Republic of Somalia waxay siina miya sameyn may iyagada ma sameynayso locationka marka haddaan halkan ka doorto wuu soo baxayaa sorry anigoo kaleeto haddaan isbaaro ama media ama media I don't know wuxuu oran doono ama media waa ka aniga xayisiin baa ii kacsan Instagram-ka ah wuu soo saaray okay okay Instagram-ka xayisiin waaye Facebook iyo Instagram-ka way isku xiran yihiin marka wax kasta ku kacsana xayisiin wuu soo saaray haddii qof kale Soomaaliya shirkad kale aan garanayo ay jirtona waa soo saari lahaa by the way waxa weeye inaan social mediaha sida loo isticmaalo jiray si ka duwan hadda loo isticmaalo objectiveka dadku inay isticmaalaan shirkaduhu laga hor lacagta ay kaga heli jireen hadda midda ka badan waxa weeye addiska lacagta ay ka helaan dhammaan social media hadda la isticmaalo adduunka waa Facebook iyo Instagram oo isleh Twitter iyo LinkedIn oo kala gooni ah Pinterest iyo YouTube iyo Snapchat waxaan isku dayi doonaa Facebook gooni inaan course aad u ballaaran oo dheer haddana insha allahu tacaala inta freega ah inta yani fundamentalka ah oo ilaa intermediate qofku fahmi karo xaysiin uu isagu samaysan karo waa sameynaynaa laakiin course inta ka ballaaran oo A to Z ah ayadan gooni waan kusoo samayn doonaa Instagram-ka lamid sidoo kaleeto Twitterka inta badan reyaal lagu xayisiiyaa waa linkidiyaha waa horey baan kugu sheegay Twitterka ma samayn doono laakiin linkidiyaha waa samayn doonaa inkastoo linkidiya laftigiisa Soomaali badan aysan isticmaalin Pinterest-kana ma samayn doono YouTube-kana waa samayn doonaa insha Allah isagoo gooni ah Snapchat waa mid ka mid ah kuwa ugu qaalisan xayisiimaha adduunka shirkadda samaysa weeye laakiin Soomaali badan maadaama ay isticmaaleen adigu waxaan kusoo koobaya inaan Facebook YouTube-ka iyo Instagram-ka saddexdaas aan koorsooyin gooni u sameyno laakiin hadda inta ibtidaadiga bilowgooda halkaan aan ku dhigan doonaa haddii rabbi idmo commentiga igu reeba sidoo kaleeto haddii aad jeclaan lahaydeen mid kale aan course kasoo diyaariyo Pinterest ama Snapchat-ka depending on your strategy you will several channels to communicate with your audience يعني halkan methodology يعني markaad يعني social media wixii aad samaysatid laba option baad dadkaagii kula xiriiri kartaa midna waa organic midna waa paid baad wax ku samayn kartaa marketing la xiriira waa free method to grow organically waa yani si organic inaad ganacsigaaga u korisid waa free method to grow baa la engage with written following using shareable and interesting content waxaad dadka u sheergaraynaysaa wax dadka soo jiidanaya oo xiiseynaya kadibna sida caadiga ahayd baa u raacinaysaa inay waxa usoo jeedinaysaa inay wax kaa gataan sidoo kale paidka waxaa lacag ku bixinaysaa in dad hor leh aan weliga ganacsigaaga aad arkin aad lacag ku bixisan ganacsigaaga u arko istaraatiijiyad adoo istaraatiijiyadaada isticmaala wax walba istaraatiijiyadda ka muhiimsan istaraatiijiyadaada isticmaalaya dadkaas markay kusoo raacaanna wax ka gadid muhiimaddu waa intaas laakiin haddaan usoo laabto all social media labada qaab unbaa marketing loogu samayn karaa waa organically iyo paid organically waa ka duwan yahay paidka organic waa si free ah inaad u siyaasid waa midda waqtiga iyo juhdiga iyo uu kaa baxayso iyo maxaan ku rahdaa caqligaaga oo dhan marka paidkuna waa waxaa bixinaysaa lacag organic halkan baan kusoo sharaxay muhiimaddu waxa weeye organiclu يعني unlimited time and resource يعني organically waa aad buu uga adag yahay paidku يعني qof haysta waqti ku filan iyo resource baa runtii kasoo bixi kara waa difficult
oo uu ka adag yahay paidka. Paidka waxaa laga yaabaa istaraatiijiyada haddaa haysatid inay ka fududahay, laakiin paidku wuxuu uga xanuun badan yahay, lacag baa kaa baxaysa. Paidkuna intaas isna waa intaas. It goes without saying that each social media platform operates. Labadaas buu u kala baxaa. Waxaa xiga inaan channelskii usii galgalno. Soo koobanaa insha Allah. Muhiim waxaa ah inaan practice-ka badino oo fundamentalka aan qaadano. Marka how to develop social media strategy. Strategy way define your goals. Waxyaabaha ugu badan oo dadka Soomaalida ay sponsorka markay sameynayaan ku wareeraan waxaa ka mid ah goalkooda maba caddaba. KPIs wax la yiraahdo waa arki doonaa insha Allah baa lagu sharaxaa. KPIs-ku waxa weeye yani maxaa objective-ka xayisiinta u sameynayso waa maxay? ama social media marketing waa maxay waxaad sameynaysaa? Ma waxaad rabtaa inaad dad followers inaad ku noqdo inaad dhistid? Ma waxaad rabtaa inaad who old dadkaasi think about your audience. Marka koowaad goalkaaga qeexdid, marka labaadna target people-kaaga dadka aad rabtid inaad soo jiidato waa inay ku cad yihiin. Lama rabo Soomaali oo dhan. Soomaalida oo dhan aniga mostly waxaan sameeyaa hadda xayisiin aan leeyahay qofka arka waa qof yani xiiseeya waxyaabaha online-ka la xiriira, ama ha ahaado haddaan book soo daawacayo kaleeto book dadka xiiseynaya waa target audience ii gooni ah oo aan leeyahay oo ah dadka online-ka waxyaabaha la xiriira, dadka raba inay online ka shaqeeyaan, dadka raba inay online ka sameeyaan casharadooda ay wax ka bartaan, dadkaasaan waxaan u sameeyaa xayisiin. Ama sidoo kaleeto anigu agency baan ahay, ganacsi baan leeyahay, waxaan rabaa inaan helo macaamiil aan u shaqeeyo oo baraha bulshada ka caawiyo. Targetkayga haddaan rabo inaan xayisiin sameeyo waa maxay? Waa dadka business-ka leh, every person who own business kaasaan target ka dhigtaa. Dadkaasi marka xaggee joogaan, intee jirro wey, waxaas oo dhan waxaa laga rabaa inaad qeexido ay ku qoran yihiin. Marka labaad maxaa dadka tusisaa? Design content. Contentka dadka tusisaa waa maxay? Ma story baad tusisaa, ma case study baad tusisaa? Marka intaasoo dhan markay ku diyaar garoobaan kadib baa waxaa laga rabaa inaad share garaysatid bahalkeeda. Maanta casharkeenu intaas kusoo kooban yahay. Casharka kan ku xiga Facebook iyo Instagram-kan si gooni u galanaa. Saan hore idinkugu sheegay ha ilaawinin inaad igu soo qortaan commentiga ay igu soo qortaan measure-ka ah Facebook iyo Instagram iyo YouTube saddexdaas waa waajib, waa ka diyaarinayna koorsooyin fundamentalkoodana ayagana gooni baan u arki doonaa insha Allah. Marka waxaa laydinka rabaa laakiin waxaa laydinka rabaa inaad insha Allah tacaala nala share garaysaan haddii aad Snapchat-ka ama Twitter-ka ama LinkedIn-ka. Pinterest waa taqaanaa sawirada kii lagu share garan jiray weye. Anu Pinterest-ka saas aad uma isticmaala sababtoo ah dalkeena iyo society-ga ma anfaco. Intaas kaad rabtaan inaad asna aan kusoo daro. Casharka kan ku xiga insha Allah Facebook iyo Instagram-ka si guud uga sheekeyn doonaa sida page loo sameeyo. Page-kaaga practice-ka ugu horreeyay baan arki doonaa insha Allah. Casharka Khamiista sida Facebook page loo sameysto, Facebook page-kaas loo optimize gareeyo, cover-kii iyo profile-kii loo sameysto, kadibna methodology labadiiba ah organically sida loo koriyo iyo sida paid ahaan loogu koriyo. Aad baa umahadsantihiin. Ha ilaawin inaad share garaysaan, follow saartaan. Runtii aad bay noo anfacaysaa.